Inkastoo indhaha caalamka ay ku sii jeesteen Somaliland kadib aqoonsigii rasmiga ah ee Israa'iil, haddana dhulku weli waa mid aad u liita, sabool ah, isla markaana si weyn looga indho-tiray fagaarayaasha caalamiga ah. Ganacsade Israa'iili ah oo lagu magacaabo Yoav Maged, kana shaqeeya kuna noolaa Somaliland dhowr sano, ayaa tilmaamay in Somaliland meel ay ka jirto saboolnimo aad u daran, gaajo, iyo kaabayaal nololeed oo aad u liita, halka dakhliga dadka uu ka hooseeyo kan dalal badan oo ka koreeya, musuqmaasuquna uu si weyn u baahsan yahay. Wareysi uu siiyay warbaahinta Israa'iil ayuu sheegay Maged in inkastoo Somaliland ay leedahay muuqaallo dabiici ah oo qurux badan, bad bacrin ah, iyo kheyraad dabiici ah, haddana nolosha maalinlaha ah ay tahay mid aad u adag. Waa meel aad u sabool ah, gaajo baa ka jirta, saboolnimo waa mid aad u qoto dheer, mararka qaar xitaa wax lala yaabo, ayuu yiri. Wuxuu sidoo kale ka hadlay nidaamka lacagta ee gaarka ah. Haddii aad bixiso $10, waxaad helaysaa xirmo weyn oo lacag waraaqo ah. Wuxuu xusay dhaqan la yaab leh oo ay leeyihiin dadka deegaanka: inkasta oo ay leeyihiin mid ka mid ah badaha ugu bacriminta badan dunida, haddana dadka intooda badan ma cunaan kalluunka, balse waxay ku tiirsan yihiin dhaqashada xoolaha. Si kastaba ha ahaatee, xitaa duruufaha adag ee dhexdeeda, Maged wuxuu sheegay in dadka uu arkay kuwo xiise leh oo soo dhoweyn leh. Isagoo Israa'iili ah, ma uusan la kulmin nacayb. Wuxuu xusay in dadka deegaanka intooda badan aysan aqoon badan u lahayn Israa'iil iyo dadkeedaba, isla markaana ay ula dhaqmaan si caddaalad ah oo aan takoor lahayn. Maged ayaa sidoo kale tilmaamay dareenka farxadda iyo xiisaha ee ay abuurtay aqoonsiga Israa'iil. Waxay ogyihiin meel cidna aanan booqan, sidaas daraadeed dabcan marka xitaa dal sida Israa'iil uu aqoonsado way ku farxaan, ayuu yiri, isagoo muujinaya dayaca ka jira iyo fursadaha weli aan laga faa'iideysan.